xuskan oo noqonaya kii shanaad oo noocaan ah ayaa maanta lagu qabtay degmada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug taas oo daaranayd u ducaynta iyo xusuusashada intii dhimatay iyo dhiirigelinta kuwa weli u taagan difaaca iyo dagaalka looga soo horjeeda kooxda khawaarijta al-shabaab. xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Mudug intiisa badan, saraakiisha ciidamada qalabka sida daraawiishta Galmudug iyo ciidamada deegaanka, culimada diin iyo qaybaha bulshada degmada Wisil. Gudoomiyaha degmada Wisil iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u duceeyay shuhadadii ku shahiiday dagaalka lagula jiray kooxda khawaarijta, iyagoo bogaadiyay dadaalka dadka deegaanku ay ugu jiraan la dagaalanka argagixisada. waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa mujaahidiintii ku shahiiday dagaalkii xaq ahay ay deegaanadan iyo deegaanada hoostagaba ku soo qaadeen argagixisadu. waxaan leenahay jannati firdawso Allah in ka waraabiyo samar iyo iimaanna dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qaasatan ummadda reer Galmudug ha ka siiyo qaraabadii ehelkii iyo awlaadiina ha ka tagteen. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynaynaa in raggii meesha nooga shahiiday in amaal markooda iyo wixii annaka bacdigood aan samayno in waxa weeye acmaasha la horgeynayo. waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'aala raggaas waxa weeye naga shahiiday quraankaas iyo waxa socda iyo qirada iyo qurbaankaba insha Allah ta'aala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala Allah gaarsiiyo shuhadadii. waxaan leenahay rag aad iyo aad ugu qiimo badan taabanaya qalbiyadeena taabanaya qulubta ummadda Soomaaliyeed baa maanta xafladooda joognaa. waxaan leenahay jannati firdawso Allah geeyo. aad iyo aad waxaan mar labaad iyo saddexaad u duceynaynaa. waxay ugu soo dhacday maamaayo oo cali jeeyta mar uu leeyahay waraaba cid u soo dhacu leeyahay waraabi wuxuu yiri markuu cid ku soo dhow yahay nafus ordo siyana qaf joogayaan warana afkan jin muxuu yahay iman waraaba jin ku qaadiye soo waraabi wuxuu yiri war cidina way oo gashay anuguna waa goobaya maxana ka dhex taagan war haddii ilaahay janno noo ballan qaaday oo inaan haddaan ku shihiido haddaynu dilay haddaan dilnaba aan janno helayno ilmaheena la ogyahay maalin tanoo kala munaasabad tanoo kala lagu yiisiinayo muslimiinta dhamaantood intay meel iskugu yimaadaan ay noo duceynayaan. maxaa noo diidanaa shacabka inaan gacmaha ula tagno anigoo afka reer Beelaad ku hadlaya waxaan inta hartay inaan dhamaystirno naf iyo maal intaba inaan ku bixino. xuskan waxaa loo soo celceliyaa sanad kasta halka loogu dhigaa in reer Wisil dhiigii shuhadadana aysan noqon hal bacaad lagu lisay nimanka argagixisadaana cadgoosigeenu uusan noqon mid aan la ilaaway. waxaa waajib ah bacdama anagu mataqaana muxuu ahaa meeshan aan maanta sharafkoodii iyo wanaagoodii iyo geesnimadooda ay sameeyeen ilaahay ka sokow ayaga sabab noogu noqdeen inaan meeshan isku nabad qabno caafimaad qabna oo dhammaantii aan marakicin. waxaan leenahay waajib inagu tahay ilaahay weynaa waxaan ka baryaynaa jannatu firdaws inuu ka waraabiyo maanta qiyaam la soo bixiyo shuhadadii al-badr inuu la soo bixiyo ilaahay ka rajaynaynaa. waxaan leenahay ilaahay shuhadadiina ha ka aqbalo insha Allah hadii la qadarin dhiigiini ma dayici doono mana dayacna. saraakiisha ciidamada qalabka sida mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha deegaanada gobolka Mudug ayaa tilmaamay inay u taagnaan doonaan dagaalka khawaarijta inta laga cirib tirayo dalka Soomaaliya. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ugu duceyno walaalaheen naga shahiiday kuwii naga dhaawacmana aan ugu duceyno ayagana ilaahay noo caafiyo. waxaan leeyahay reer Wisileed waxay ku suntay yihiin inay la diriraan argagixisada ayagoo naftooda iyo maalkooda iyo dhammaan wada jirkooda kaashanaya. waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno duca joogta inaan ugu ducayno naga mudan yihiin. waxay ku dhinteen xaq waxay ku dhinteen sharaf waxay ahaayeen mujaahidiin saaxiibadayay ahaayeen saraakiishayadii bay ahaayeen walaalahayay ahaayeen ehelkayay ahaayeen oo ay daaran tahay duco iyo dhiirigelin iyo dagaalba inta iskugu jirto. mar haddaan dagaal sheegan uu dagaal awalna waa ballan qaaday hore u ballan qaaday reer Wisileed iyo deegaanka Mudug meel walba oo ay shabaab ka soo foos saaraan inaan u hiili doono. maantana ilaah baa igu sinay inaan xafladii shanaad ka soo qayb galo. u ducaynayaa dhammaan shuhadadii ku shahiiday iyo Allah u naxariisto inta dhaawacantana Allah bogsiyo awlaadoodii iyo xaasaskii ay ka tageen Allah
la koriyo naftayda awalan hore u baxshay maanta mar labaadna waxaan leeyahay waxaan micigooda ahay nimankii hore oo shahiiday baa aniguna insha Allah inta dhammaan baan dhamaystiri doonaa anoo ku hadlaya afka reer Ciildibir laakiin si wada jira waxaan u siyaarnaa shuhadada waa intaan ku noolnahay hadda waxa la ilaa 5 sano joognaa laakiin mujaahidiin badan oo ama bastoolada lagu dilay ama qarax lagu dilay oo reer galmudug oo u dhimatay shabaab baa jirta ayagana waxa leeyahay khudbadaha lagu daro dhammaan shuhada shabaab dilay inay shuhada loo yihiin insha Allah kariim waxaana u malaynayaa maanta caana maalkii lagula diriiray shabaab deegaanka Wisileed uu ka bilowday iyo deegaamada la wehliyaba maantay in la hayo guusheedii oo meesha nabad lagu fadhiyo maanta waxaan u taaganahay inaan u duceyno dadkii sharafta badnaa ee qiimaha iyo qadarinta mudnaa ee u shahiiday ayagoo difaacaya dadkooda iyo diintooda iyo dadkooda waa maalin qiimo gaar ah oo leh dhammaanteen sidaan u nahay dadka bulshada halkan joogtay soo xaadirtay oo nugu weyn waan la soo koobi karin qof kasta qalbigiisa iyo niyadiisa sida ugu weyn tahay waxaan isku nimid meeshaan u joognaa waa duco inaan u ducayno dadkii mujaahidiinta ahaa ee ku shahiiday gobolka Mudug